قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد سنلصعنا أدونك oo aan ku noolnahay, adduunkan aan joogno, adduunkan la isku dilahayo, adduunkan 24 sac la raadinayo, adduunkan salaada na seejiyey, cibaadaadka naga xumeeyey, waxaa laga dhigay daar loogu talagalay in inta yar ee la joogo qofku uu wanaag iyo camal fiican ku samaysto. ilaahay kama dhigin daar qaraar oo lagu sugnaanayo, kama dhigin daar lagu nagaanayo, kama dhigin daar layska joogi doono. sidaa darteed mid meel ku eg ayuu rabbi ka dhigay subxaana wa tacaala. waana la khalqay, waana nala keenay. sababtuna waxay ahayd qofku wixii aakhiro uu guran lahaa ama abaalkii fiicnaa ee uu heli lahaa inuu maanta kasbado, inuu maanta shaqaysto, inuu maanta alla caabudo, in yar oo adduunkiisa uu ku kaalmaysanayo aakhiradiisa inuu markaa ka isticmaalo. cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi rasuulkaa garabkayga qabtay, markaasuu igu yidhi kun fi dunyaa, adduunka waxaad ku ahaataa cabdulaahiyow kaannaka gariib, sidii qof koyto oo kale ah, musaafir oo kale ku ahaw. war qof meel gurigiisa aan ahayn iyo wadankiisa aan ahayn yimid, saa oo kale markaa ku noqo. aw caabiri sabiil, ama mid wada gudbaaya. caabirka sabiilka ah waxaa tusaale u soo qaadataa wadada laamiga ah ee weyn ay baabuurtu xoog u maraan. meeshaasoo kale qofka gudbaaya ama maraaya waa naqaanaa suu u maro, waa la soconaa xaaladiisa. laba qofood oo saaxiibo ah markay rabaan inay wadadaa gudbaan, say u sheekaysanayaan ma dhex istaagaan, waayo waxay ka cabsanayaan gaari inuu meesha ama meesha kale uga yimaado. labada dhinac intuu iska fiiriyo yuu orod ku gudbaa. saasoo kale noqda, adduunka saa ku ahaada, meel lagu waaraya ma ahee. haddii la waari lahaa nebi moxamedaa ku waari lahaa sala allahu calayhi wasalam. wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum lkhaaliduun. nebi waxaa lagu yidhi adi hortaa bashar inuu waaro adduunka sii joogo uguma talagelin. wamaa jacalnaa libasharin waa min qablik, adi hortaada alkhuld waa waaritaan, inuu adduunkan iska joogo looguma talagelin. afa in mitta fahum lkhaaliduun, haddaad dhimatid ayaga maa waaraya buu dhayla subxaana wa tacaala. haddaad adduunka ka tegtid ayaga maa joogaaya, haddaad adduunka ka rawaxdo ayaga maa seexanayoo joogaaya. waa ma jirto. meesha waxaan ka fahmaynaa safaraa la yahay, waa la socdaa, waa la kala horeeyaa, qofba maalin buu tegayaa. qof walba waa inuu garaad iyo caqli yeesho uusan nasirin adduunka.
yaa ayuha annaas wardadow ittaquu rabbakum rabbigiin ka cabsada buu dhahay ilaahay wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-a wardadow rabbi ka cabsada wardadow ilaahay ka cabsada war xumaantan aad ku socotaan joojiya war qaladkan aad gelaysaan mar walba ka towba keena war adduunkan aad isi siiseen iska dhaafa yaa ayuhannaas ittaquu rabbakum wakhshaw yowman maalin ka cabsada laa yajzii waalidun can waladihi kii wax dhalay kii uu dhalay abaal uu siin karin canuga aad dhasha maanta hadduu kaa xanuunsado hurdo kaama timaado cunto kaama degto dhakhtarkaa lala carara wax walbaa loo sameeyaa gobol jisikaaga ka mid ah waaye waa cad kaa soo fuqay hurdadiisaad ku hurdaa raaxadiisaa raaxa kuu ah canuga yar ee aad dhasho mar allaala markuu ooyo habartu waa oysaa odaygu waa walwalaa rafaad iyo dhib buu maraa sababtu maxay tahay wuxuu isku dayaa inuu geeri ka badbaadiyo wuxuu isku dayaa xanuunka inuu ka kor noqdo wuxuu isku dayaa qandhada sidii looga qaadi lahaa laakiin maalinta saa u fiirin maysid canuga aad dhashay maalinta gabadha yar ee aad dhashay saa u fiirin maysid ma ogaanaysid xaalkeeda ma ogaan kartid kontaroolna ma samayn kartid waayo taadaa kugu filan sha'nigaagaa ku haystaa maalintaa ka cabsadou dhaa ilaah subxaana wa tacaala wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waladihi maxaa soo haray walaa mawluudun kii la dhalayna jaazi ma aha oo ma abaalgudi karo waxna uma tari karo kii dhalay buu dha ilaah subxaana wa tacaala aabbaa xanuunsan marka lagu dhaho 100 mar baad taleefanka dirtaa hooyaa xanuunsan marka lagu dhaho xaaladeedaad ogaataa maalintaa hooyi aabba meel lagu sheega male inay hooyi aabba ku dhaleen shaki baa kaa gelahaya sababtu maxay tahay yowma yafiru almar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih waa la kala orday walaalkaabaad ka carartay hooyadii ku dhashay aabbihii ku dhalay xaaskii kuu dhaxday walaalka wax isu joogsadaya ma jiro waa maalin in laga cabsado mudan waa maalin in la shaqaysto mudan meeshaasaa safar loo yahay meeshaasay dadku u socdaan laakiin daartaanaan moodnay daartii farxad mee waa daar murugyo waxaan moodnay daartii raaxada daar raaxa ma ahee waa daar tacab waxaan u malaynay daartii lagu waaraayey daar lagu waaraya ma ahee sakaraad iyo dhimasho yaa lagu dhexdhedhaminaa saa darteed baa cabdullaahi wuxuu dhahay nebiga garabkayguu qabtay markaasuu igu dhahay kun fi dunyaa kaannaka gariib cabdullaahiyow meeshaan ma u jeedaa meel la sisiiya ma aha meel la seexda ma aha meel lagu rarfurta ma aha meel lagu farxa ma aha meel la jeclaada ma aha war musaafir ku noqo war gariib ku noqo war meeshaan aad joogto waxaa lagu yahay musaafir waxaad ku tahay koyto waxaad ku tahay socoto waxaad ku tahay meel la maraayo xaaladaa ogow cabdulaahiyow waxaad ogaataa meeshaan gariib baa lagu yahay annagu waxaan dhahnaa markaan waddanka ka soo tagnay qurbaan ku noolnahay meel qurbaan joognaa adduunkoo dhan baa qurbaa walaalayaal meel kasta kaga noolow ama waddan kale aad ama waddankaagii joog ama meeshaad joog meel allaala meeshaad ku nooshahayba gariib baa lagu yahay musaafiraan nahay waa la socdaa socotaa la yahay koytaa la yahay adduunkoo dhan baa lagu yahay haddii musaafir aan nahay maxaa nala gudboon marka waxaa nala gudboon rarka iyo culayska in layska dejiyo waxaa nala gudboon si aan socod fiican u helno inaan waxyaabaha sahayda ah ee aan wadanee qiimaha aan lahayn aan iska daadino sahayna anfacaysa inaan qaadano intaan jidka ku sii socono waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu noo tilmaamayaa meeshan inaan qurba ku nahay waryaan qariib ahayno annaga naga mid ah war qofka qariibka ah ma aha qariibka shaam iyo yamanka degan laakiin qariibnimada la tilmaamayo waa safarka aakhira loogu socdo waa meeshan aan ku sugannahay waxaad qariib ku noqonaysaa ood keligaa ku noqonaysaa waa qabriga iyo laxdiga marka lagu dhigo saa darteed walaalayaal aan fahamno aan ku cibro qaadano xadiidka rasuulka sala allahu calayh wasalam mar walba adduunkuu nooga warramaa faa'iida daradiisuu nooga sheekeeyaa rasuulka wuxuu nooga digaa rasuulka adduunka inuu marka
kaa nasiro inuusan nasirin oo aan ka faa'iidaysano maalmaha aan joogno waa wax lagama maarmaan ah. wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-a. intaa maxaa lagu daray? ina wacda allaahi xaq. ilaahay ballantiisu waa dhab. ilaahay wuxuu jiday waa dhacayaan laa maxaala. ilaahay soo wax u jideeyo u jaangooyey u fulayaan una soconayaan. ina wacda allaahi xaq falaa tagurannakum alxayaatu اddunya. noloshan adduunka idin sirin marka yay idin kedinin buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. walaa yagurannakum billaahi algaruur. midka garuurkee dadka sira waa shaytaan. midka garuurkee dadka khiyaano waa ibliis. midka garuurkee salaada naga waswaasiya oo khayrka naga leexiya oo adduunka noo siineeya oo wixii xunba noo qurxiyo wax fiican nooga dhiga kaana waa ibliise. iska ilaaliya buu ilah leeya subxaana wa tacaala. walaa yagurannakum billaah. war yuu idin dagin, yuusan idin sirin garuurka kada badanaha shaydaanka markaa ah. hurdada waa kuugu celiyaa oo raaxuu kaaga dhiga. subaxii baa soo kacda adoo salaadu ku dhaaftay adoo jajaban. awa raaxadaad xali haysatay waa ma jiro. xaloo dhan buu saa kugu celinaayey. xaya cala asalaax xaya cala alfalaax baa la lahaa. wuxuu ku dhahaya calayka leylan tawiil farqud. war habeenku waa dheeryahay hurud buu maantao dhan kugu haayey. mar allaala marka salaadu kaa caddaato oo mar allaala wixii khayrka lahaa uu ku dhaafo oo wax allaala wixii rasuulka khayrka ku tilmaamay uu ku seejiyo ayuu kaa tegayaa. intuusan kaa teginna labada dhagood intuu kaaga kaadiyo najaasadiisuu kugu daadiyo yuu albaabka ka baxayaa. waa inuu habeen dambuu ku leeyahay haddana inaan iska qabana way fiican tahay, inaan iska ilaalino waa lagama maarmaan. walaa yagurannakum billaahi algaruur. yuusan idinka kedinin yuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. calayka leylan tawiila farqud buu leeyahay. habeen dheer ma jira meesha. war wax dheer malaha. addunya saaca. adduunku waa hal saac walaalayaal. fajcalha taaca ilaahay ka dhigo. halkaa saac taaca ilaahay ka dhigo. maba ka badnaba hal saacad. waxaa laga yaabaa inuu ka yar yahay. waa mar allaala marka la fiiriyo ilaahay subxaana wa tacaala sida uu ku tilmaamay. haddaba qofka muslimka ah mar allaala markuu iska ilaaliyo shaytaan iyo adduun, hawo iyo naf inuu badbaadaa suuragal ah. adduunkan aan maantao dhan u dadaalayno oo subaxiisaan u kacnay, hadda aan nimidoo soo hooyanay, qaarkeen ay cishahaasay ku tukadaan ay adag tahay, qaarkeen maqhribkay inay kacaan ay ku adag tahay. sida maantao dhan adduun loo raadinayey, salaad looga tegey, indhaheena xaaraan ay fiirinayeen. adduunka noocaas ah markuu ku leeyahay shaytaanka habeenku waa dheeryahay ee iska seexo, muxuu ku seejiyey 2 rakacadood oo rasuulku uu ku tilmaamay inay ka khayr badan yihiin adduunkii waxa saaran dhammaantiid. waxaad maantao dhan raadinaysay ma aha, shilimaadkii inaad dukaanka ka hesha aad raadinaysay ma aha. adduunka min dacal ilaa dacal, gees ilaa gees, kor ilaa hoos, intaasoo dhan waxa saaran maxaa ka khayr badan 2 rakacadood buu dhahay nebiga oo salaada fajarkaa ka hor la tukado. weli salaaddii subax ma gaarin, weli waajibkii ma fulinin, weli wixii alla kuu diray oo aad diyaarka u ahayd abaalgudka fiican lagugu siinaayey weli lama gaarin. sidaa darteed baa 2 rakacadood rasuulka uu ku tilmaamay inay ka khayr badan yihiin adduunkii waxa kor saaran ama gudihiisa markaa ku jira. bacdamaa saa ay tahay adduunku aan garanay inaan musaafiriin nahay, aan ogaana inaan qariib ku nahay walaalayaal. war yaan isi siinin meel isi siiya ma aha. yayna na dagin, dagitaankeedaa badan. yayna sirin, waxay sirtaa badan. aad isaga ilaaliyuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala. war intaad iska ilaalin kartaan iska ilaaliya. ninkan maxaa lagu yidhi kaannaka hariib, mar hariib ku noqo, war musaafir noqo aw caabiri sabiil. cabdullaahi bnu cabbaas, cabdullaahi bnu cumar radia allaahu canhu, intaa wixii ka dambeeya wuxuu ahaa baa la yidhi, ilaahay ha ka raadi noqdee, haddii subaxii uu gaaro galab ma sugi jirin, hadduu galabtii gaarana subax ma sugi jirin radia allaahu tacaala canhu. wuxuu fahmay kun fi dunya kaannaka hariib, waxaa macaanidiisii ka daadegay ow caabiri sabiil. wuxuu fahmay kun fi dunya kaannaka hariib waxa loola jeedo waan akhrinaa, waa dhegaysanaa, waa fasirnaa, waana loo fasiraa, waana usii orodnaa haddana. war ka warrama nin subax gaaray oo galab sugi waayey. hadday dhacdo inuu gaarana subax aan sugayn, hadduu subaxii kala gaaro galab ma sugo, haddii galabtii kale
uu gaaro subax ma sugo, adduunka ugu dhammaaday. radia allaahu canhu. sida loo baahan yahay saa waayo walaalayaal. qofku markuu saa sameeyo asagoo isticdaadsan oo diyaar garaysanay geeridu u timaada. rabbi buu la kulmaa asagoo tawxiidka carabka ku haaya. ilaahay buu la kulmaa asagoo khayrkii wanaagga ku dhex jira. ilaahay buu la kulmaa asoo 5 salaad ilaaliyey. ilaahay buu la kulmaa asoo sakaadkii sadaqaadka bixiyey. ilaahay buu la kulmaa asagoo soonka wanaajiyey. sababtu waxay tahay subax markuu gaar galab maba sugaayaba. isma dhahaya galabtaad nabad ku gaari doontaa. galabta asxaabulqubuuraad ka mid tahay oo waxa qalbigiisa ku jira, waa waxa qalbigiisa ku qufulan. 10 sano 20 sano 50 sano 60 sano soo socotaa wixii aan samaynan qalbigeenna ku qufulan. cabdullaahi markuu rasuulku ku dhahay kun fi dunya kaannaka gariib, waxaa ku qufulnaatay inuu ahlu qubuur yahay, inuu dhimanaayo, in la wado, in la aasaayo, in keligii laga soo tegaayo. waxaasoo dhan baa qalbigiisa galay. kun fi dunya kaannaka gariib. aan ku tadabburno, war macnaha xeelka dheer ee ku jira aan ogaano, wuxuu rasuulku ula jeeda aan fahamno. wax allaala wuxuu ilaahay rasuulku u soo waxyooday ee khayrkee ku jira inaan fahamno waa lagama maarmaan. dumarkeenna waayo waxay guryaha isaga dumiyaan dahab inay helaan. raggeenna waayo waxay salaad uga tagaan inay doolar helaan. odayaasheenna waayo waxay diinta u xaraartiyeen oo ay uga tageen inay kursi ku fadhiistaan. dhallinyaradeenna waayo waxay diinta u baran la'yihiin waa inay tahriib galaan. xaalkii aaway kun fi dunya kaannaka gariib. nebiga hadalkiisa ciyaar miyaa walaalaya? dheeldheel miyaa rasuulka hadalkiisa sallallahu calayhi wasallam? jawaabtu waa maya. cabdullaahi muxuu u fahmay hadduu subxaystana inuusan galab gaarin, hadduu galabaystana inuusan subax gaarin. cabdullaahi wuxuu oran jiray baa la yidhi, caafimaadkaaga u qaado xanuunkaaga iyo jiradaada. noloshaada waxaad u qaadataa geeridaada. oo in allaala intaad nooshahay dadaaloo diinta ku soco, dadaal oo qur'aanka baro, dadaal oo ummadda kaalmeey, dadaal oo macruufka dadka amar, dadaal oo salaada ha dayicin, dadaal oo masaakiinta iyo deriska waxtar, dhibkii mashaakilka ka dhaaf. caafimaadkaaga waxaad u qaadataa jiradaada. oo wuxuu u qaato u fahmay intaad caafimaad qabto salaad aad u istaagi karto, salaada hagaaji. intaad caafimaad qabto oo tallaabooyinkaagu ay soconayaan khayrka u socodsii. inta dhabarkaagu dhaqdhaqaaqay rukuuc iyo sujuud ku dadaal. in allaala inta aad hadli karto hadal khayra ku hadal. waqti baa la gaari doonaa carabka uu gabo inuu hadlo. xilli baa la gaari doonaa biyaan u baahanaydan dhihi karin. xilli baa la gaari doonaa carruurtaadaan la hadli karin. xilli baa la gaari doonaa xaaskaagaadan dalban karin. sakaraad baa la mari doonaa, carabkaa adkaan doona. laa ilaaha ila allah qofku ilaahay waafajiyaa dhihi doona. wax kastoo lagu weydaad madaxa ruuxin doontaa, wax kastoo lagula hadlaad madaxa maya ka siin doontaa oo ruxruxitaan ah. aawa hadalkii xooga badna, aaway kaftankii, aawa fadhi ku dirirkii, aawa dadkii bannaanka ku sheekayn jiray, aawa dadkii isku diri jiray, aawa dadkii xumaanta ku hadli jiray, aawa dumarkii waxaman jiray. carabkii waa istaagay, waa gabay. intaan la gaarin baa loola jeedaa maanta adduunka ka faa'iidaysta. cabdullaahi xaaladaasuu u fahmay. wallahi suu cabdullaahi u fahmay haddaan u fahanno waa liibaanaynaa. suu u gartay haddaan u garanno khayr baan gaaraynaa. suu u fahmay haddaan u fahanno beydka allaan camiraynaa, suuqan ku yaraanaynaa, adduunkan ku yaraanaynaa. waxeenoo dhan dhanka aakhiray noqon doonaan. waayo dadkii naga horeeyey meeshaan aan fadhinay fadhin jireen. daarahan dadkii camiray walaalayaal qaar baan calfan gobol ka mid ah oo mar allaala markii loo dhameeyey hal habeen aan seexan, shilin ka mida aan ka cunin, haddana tixri cunay oo baaba'ay oo jasadkoodii qabri ku baaba'ay. walaalayaal adduun waa kaasaa. adduun qiimihiisa waa ka. haddaad isku dili lahayd iyo haddaad caawo dhan ka fakeri lahayd oo tasbiixda uu kaa mashquulin lahaa oo qiyaamulil uu kaa mashquulin lahaa, buugga iyo qalinka xisaabta dadba ayagoo gacanta saa u haysta ku hurda, subaxdiina ku soo kaca. hal marna subxaana allah aan dhihin innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. muxuu noo raaca miya buugga xisaabka ku qoran qabriga? ma ilaahayuu nagala doodaa subxaana wa tacaala dadoo dad caqli leh aan noqono. caaqil waa man daana nafsa, qofka naftiisa xisaaba. wa camila lima bacda almowt, geeri ka gadaalna u shaqaysta. dhimasho ka gadaal wixii la heli lahaa waa ninka u shaqaystaa. aroos ka gadaal waxaan helin baan u shaqaysanaa. safar ka gadaal waxaan helin baan u shaqaysanaa. laakiin caaqil waa kee? wa camila lima bacda almowt, geeri ka gadaal wuxuu heli lahaa oo janno ah oo raadihasho
ilaahay ah oo naxariis Allah ah oo ridwaan ilaahay ah oo duca malaa'ig ah oo salaan malaa'ig ah waxaasoo dhan buu u shaqaystaa. axmaq iyo doqon waa qof allaala qofka nafsadiisa hawadeeda raaca watamanaa cala allah alamaani iska yididilsada. 40 ma gaarin buu leeyahay maxaa masaajidka ka gala? war 40 meeqaan gaarinoo god ku hooyatay walaalaya? war meeqaan 30 gaarinoo la aasay? war meeqaan 20 aan gaarin oo dhintay? war meeqa caloosha ku soo dhimatayoo nafba aan bannaanka la soo bixin? ilaahay ma arkin miyaa aayadihiisa fa minkum man yutawafaa min qabl waxaaba jiraba qof ashuddii shuyuuq asoon gaarin la oofsanaayo wa minkum man yuraddu ilaa ardal cumr. saasay dadku u kala qaybsamaan. bacdamay xaaladdu saa tahay shaydaan yuu ku sirin. war adduunka musaafir aan ku noqono, adduunka qarbi aan ku noqono, war dad qariib ahoo musaafir aan ku noqono. war qofka socotada ah mar allaala markuu socdo oo qoraxdu ay ka badato haraadka iyo oonka uu ka bato muxuu sameeyaa? geed hoos leh buu raadsadaa. geedka hoos kale buu hoos fadhiistaa, biyuu ka badaa, sahayda uu qaatuu wax yar kala baxaa, kadibna waa xirxirtaa waana socdaa. rarka kuma furta meesha, waayo meel bahalla badan, libaax badan, dhurwaay badan baa laga yaabaa inay tahay. rasuulka sala allahu calayh wasalam maalin maalmaha ka mida derin buu ku seexday. rasuulka derinta firaash uma saarna, salli uma saarna, go' uma saarna. suu u jiifaa markuu soo kacay waxay ku sawirantay gacantiisa iyo garabkiisa. waayo cawda markaad ku seexato wax kaa xiga aysan jirin waa ku dhaawacaysaa, waa kugu sawirmaysaa. cumara arkay radia allahu canhu rasuulka xaaladuu ku sugan yahay iyo sida xaaladiisu ay tahay. cumar waa ooyey radia allahu canhu. cumar wuxuu ka oynayaa xayaatada nebiga ku jiro, wuxuu ka oynaa derinta salliga ah ee wax loo saaro aysan jirin, wuxuu ka oynayaa nebiga gacantiisay u barartay. rasuulkii allow faris iyo ruum waa kufaar gaala ah, waxay ku seexdaan usbuunyooyin, waxay ku seexdaan imtiqaana witaa, waxay ku seexdaan derin qiimo badan, waxay ku seexdaan firaash aad iyo aad u qiimo badan. kuuma weynin rasuulkii allo aan kuu samayno. saxaabadiisaa ku dhahday nebiga sala allahu calayh wasalam maa lii walidunyaa buu ugu jawaabay. war anii adduun maxaa isku nahay? ani iyo adduun maxaan isku nahay? maa lii walidunyaa, ani iyo adduun miskuma nihin ilaa ka raakib istadalla taxta shajar uma raaxa wadahab ama watarag. waxaan nahay nin socoto ah, nin koyta ah, nin musaafir ah, geed hoostiisa soo maray, wax yar fadhiistoo ku harsaday, kadibna ka rawaxay. intaas waayanii adduun buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam. haddaan adduunkii jeclaanay maantoon aakhiro nacnay, haddaan maanta adduunkii daartaan u malayna daar lagu sugnaanaayo oo daartii aakhira nala xumaatay, oo qof kastoo annaga naga mida shiiqeena iyo shariifkeena, keena weyn iyo ka yar, ugaaskeena iyo ka kale, dumarkeena iyo ciyaalkeena, kulli adduun la daba orday. aakhiryaana waxaa walaalaya tilka daaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin. dadka muttaqiinta ciribta fiican u sugnaatay. daarta aakhira waxaa iska leh jannadaa loola jeedaa. taas daarta aakhira ah najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwa, waa dadkan kor ahaasho arladaa rabin buu dhahay subxaana wa tacaala. qof kastoo annaga naga mid ah culi fil ardu raba inuu arlada ku kor noqdo, ugaasnimo in loo doorto, cano lagu shubo, taalo in loo sameeyo, ubax loo dhigo, madax inuu noqdo, kursi ku fadhiisto, ninka ugu xoolo badan inuu noqdo, ninka ugu daaro badan inuu noqdo, ninka ugu hantiilada badan inuu noqdo. war hanti meel timid oo raadinteedii timaaday waxaa ku yaraanaya aakhira raadinteeda. aakhiroo la dalbaa yaraanaysa. qofku in allaala intuu adduun ka fogaado yuu aakhiro u dhowaadaa, intuu aakhira ka fogaado adduun u dhowaadaa. xaaladda inaan ogaano waa lagama maarmaan. nebiga nin saxaabi baa la socday, buurta uxud baa ka hor timid. ma jecli buu dhahay uxud inay ii noqoto dahab. buurtaan aad u jeedaan oo dhan inay intay dahab noqoto igu soo wareegto. haddana hadday dhacdo ma jecli 3 maalmood wax ka badan inay gurigayga ku nagaato, ayuu rasuulku dhahay sala allahu calayh wasalam. ilaa 1 diinaar ama 2 ama 3 aan u kaydsada inaan daynta isaga guda maahane, ilaa naqula inaan ku dhex dhaho addoommada ilaahay maahane, haakada wahaakada wahaakada, macnaha inaan ququbo maahane. muslimiinta dhibaataysan
agoommada garoobada waxa xaqaxay waxa qaxooti ku jira waxa dhibaataysan waxa beerka dhulka ku haya waxa rafaadsan inaan ku dhex qaybiyo maahane rasuulku wuxuu tilmaamayaa sallallahu alayhi wasallam adduunku waxa looga badbaadi karo sida ay markaa tahay adduun waxa looga fakan karo ee xaqiiqdii sida uu yahay ilaa adoomada alina saa yeela maahane dadka saa yeelaya way yaryihiin wa qaliilun maahum dadka xaaladooday saa tahay way yaryihiin aad bay u yaryihiin al-aktharuun hum al-aqaluuna yawma al-qiyaama dadka xoolaha badan waa dadka ugu ajirka yar maalinta qiyaamo ilaa qofkii saa yeela maahane wa qaliilun maahum ummaduna way ku yaryihiin alhaakum at-takaathur xataa zurtum al-maqaabir iyo rasuulku akhriyey yaquul ibnu aadam maali maali ibni aadam wuxuu leeyahay hantidaydii xoolahaygii tugaankaygii dahabkaygii war xoolahaada ma ku leedahay dhar aad xiratood baabi'isa maahane ma ku leedahay raashin aad cuntood dhammaysa maahane mise waxaad sadaqaysatood ilaahay agtiisa dhigato subxaana wa tacaala intaa mee wax kala leedahay waxna waad cuntay oo waad dhammaysay waxna waad labisatay oo korkaagu ku go'go'ay waxna waad sadaqaysatay oo alla hortiisaad u hormarsatay subxaana wa tacaala sadaqadu waa nagu adag tahay sadaqadu waa nagu dhib badan tahay sadaqadu waxaan ka xignaa geeri sadaqadu waxaan ka xignaa waxyaabo badan inta xooluhu bixi lahaayeen inuu asagu bukoodu qofku jeclaanaya xaaladaa maxaa dhacay ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala fa amaa man tagaa wa aahara alxayaata addunya fa ina aljaxiima hiya alma'wa wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa qof kasta oo kaca oo intaqaana xadgudba fa amaa man tagaa waa kii qooqoo kibra amarka alla diida daacada alla ku socon waaya salaada lagu kari waayo kibri isla weyni adduunka ku mara moodo ummaddeenu asaga ka sarreeyuu jajabin karo hanti ilaahay siiya darteed ileen duqyaanka iyo kibirka muxuu ku yimaadaa saldarad inaad hesho ama in ilaahay xoola ku siiyo ilaahay baa ka hadlay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay markuu iqrar noo tilmaamay ilaahay wuxuu tilmaamay ilaa subxaana wa tacaala kalla ina alinsaana la yataqaa insaanku waa kibir badan yahay waa qooq badan yahay waa mtaqaana wuxuu la yimaadaa xadgudub waa goormee an ra'aahu istagna waa markuu laba shilin isku arko waa markuu istiqnay deeqtooni isku arko kii ma ahaba kii ku salaami jiray ma aha kii ku shaxaadi jiray ma aha kii ku hor imaan jiray ma aha kii maqaayadda markaad gasho kaa soo dabageli jiray ee kuu ag fariisan jiray ee ku salaami jiray maba ahanba ina alinsaana la yataqaa waa goormee an ra'aahu istagna waa markuu deeqtoomo waa markuu wax isku arko waa markuu xoolo yeesho kula hadli maayo waa kibraa sankuu taagaa eedabdaru tilmaamaa wuxuu kuu arkaa inuu kaa sarreeyo shalay uu ka hor imaanayay maantase wuu kaa dhuumanayaa an ra'aahu istagna ina ilaa rabbika arujca ilaa xaggiisaa loo noqonaa ma oga miya war xoolaan qofoo la dhashay ma laha qof walboo annaga naga mid ah caloosha hooy maantuu ka baxaayey gacmihiisaasay u laabnaayeen waxba ma wadanin shilin aad haysatay ma laha calalkuuma xirnayn adoo qaawan yaad adduunkaan timaaday ma ogid miya ma hilmaannay xaaladdaa wala xasuusan waayey markaad hooyo caloosheeda ka soo baxaysay nin jaakatiin watay ma laha nin jeenis u xirnaa ma laha nin suud watay ma laha nin iskaarba watay ma laha nin jambal watay ma laha gabar dhegadhega u xirnaa ma jirin qof walba rag iyo dumar wiil iyo gabar waxaa la soo baxay ayadoo la qaawan yahay tii waa hilmaanay laakiin gadaal inaan xasuusanaa fiicneed falyandur ilinsaan insaanku ha fiiriya mima khuliq see loo khalqay maxaa laga qalqay khuliqa min maa'in daafiq yakhruju min bayni sulbi waataraa'ib innahu calaa rajcihi laqaadir yaan isilmaamin walaalaya ha ismoodin saad u jaakaysantahay inaad u dhalatay catarkii barfuunka kuu marsan inaad hooyo caloosheeda kala soo baxda ha ismoodin dhiig baad la soo dhex baxday wasaq baad la soo dhex baxday meelay kaadi martaa soo martay kun fi dunya kaannaka gariib adduunka musaafir ku noqo marka is-ogow ee isfaham waa inaad isgarataa qofku markuu isfahmo oo uu isgarto meeshuu ka yimid iyo suu ahaa iyo xaaladiisa qiimo fara badan buu leeyahay cibaada u kordhaysa kibirkuu joojinayaa isla weyniduu yaraynayaa ummaduu imtaqaana ducafadu wax u qabanayaa rabbi buu ka cabsanayaa xishood buu la imaanayaa kibirkan iyo waxaan lagu socduu joojinaa waa markuu gadaal isku ogaado insaanku ha fiiriya walaalayaal ha ogaada wixii laga khalqay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala khuliqa min maa'in daafiq biyo boodaa lagaa khalqay biyo aan xaqiir ahaa lagaa qalqay sida ilaahay
ilaahay aayad kale uu ku tilmaamay alam nakhluqkum min maa'in mahiin war soo biyo xaqiir idinkama abuurin mahiin maxaa loogu bixiyey biyaha maradu meeshay gaaraan qofku inuu iska dhaqame ahee magaalada kuma aadi karo sharaf daradeeda qiimo liidadeeda sida ay tahay kaasaad ka timid kaasaad socotaa kaasaad ka soo askuntay rabbina kaa qalqay subxaana wa tacaala markaad xoog yeeshatay salaada duko ma adaa iguloo kugu jawaaba kuguma laha laakiin waa lagu amra war ilaahay ka cabsi ilaah waxaan xasuusiya adduunka ugu necbnahay dad yidhaahdaa maanta adduunka jooga ummadda waxaan ugu necbahay qofka ilaahay ka cabsi yidhaahda mar allaala markuu xumaan kusii dhex jiro ma ola sii jirta haddana ilaahay wuxuu tilmaamayaa alam nakhluqkum min maa'in mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiin boos la ilaaliye baanu yeelnay makaan qaraar ahoo la ilaaliyey ilaa qadarin macluum ilaa qadar la yaqaano laga gaaro waa qadarka wilaadada waa inta qofka uu dhalanaayo waa 9 bilood ay hooyo cunuga caloosha ku hayso ilaa qadarin macluum faqadarnaa fanicma alqaadiruun haddaad ilaahay ogaan weysaan waylun yowmaidin lilmukadibiin halaag ba ah maalinta aakhiro inta benisu u sugnaaday ilaahay saasuu tilmaamayaa aayadahan kale ilaah wuxuu ka abuuray min maa'in daafiq yakhruju min bayni sulbi waataraa'ib waxay ka soo baxaan kalxamo hooyo iyo dhabar aabbe innahu calaa rajcihi laqaadir ilaahayna inuu soo celiyo insaanka markuu baaba'o cara iyo lafa noqdana ilahay waa kari karaa subxaana wa tacaala aayadaha kale maxay tilmaameen kallaa lamaa yaqdi maa amara falyandur اlinsaanu ilaa طacaamihi ama insaanka wuxuu ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala maa akfarah maca kufri badnaysiiyey min أyi shayin khalaqah min nطfatin khalaqahu faqadarah ثuma الsabiila yasarah ثuma amaatahu faaqbarah ثuma idaa shaanshara sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala war insaanka ha fahmo war insaanka ha garto war ilaahay ka cabsa maxaa qur-aanka loogu soo celcelina war mar kasta waa lidin cadaaba haddaad alla caabudi weysaan maxaa qur-aanka loogu badiyey wasarafnaa fiihi min alwaciid lacallahum yattaquun intaa inay cabsadaan buu dhahay subxaana wa tacaala waxaa intaa cadaab looga sheekayna oo naarna loogaga warramaya oo ummad la halaagana loogu sheekaynaya oo dad ilaahay intay inkireen dhulka lala goyna loola sheegaya waxay tahay intaa inaan cabsano qur-aan baan kuu soo dejinay ayuu yidhi ilah subxaana wa tacaala luqad carabiya markaa ah wasarafnaa fiihi min alwaciid goodi baan ku soo celcelinay lacallahum yattaquun aw yuxdiu lahum dikraa waa inay waana qaataanoo dikri cusub uu soo jiidsamo saasaan ugu talagalnay waa layswacdiyaa waxbaa laysku sheegaa intaa xusus baa loola jeedaa waxaan caawo dhan sheegaynay qofaan garanayn ma laha qof kastoo meesha fadhiyo nagamida wuu yaqaanaa laakiin wadakir faina dikraa tanfacu lmu'miniin mu'miniintu way anfacaysaa iimaanku wuu ku jedidsamayaa waxaad noqonaysaa qof ilaahay u soo intibaaha khaflada iyo ilowshaad ku jirto waad ka soo noqonaysaa fadakir bilqur'aan man yakhaafu waciid qur'aanka kuwaani buu dhahay ilaahay qofka waciidka ka cabsanaya hanjabaadda ka cabsanaya goodiga ka cabsanaya kuwaani oo u sheeg oo waxyaabahaasoo dhan u tilmaan xaaladaasu ilaah noo tilmaama subxaana wa tacaala walaalayaal adduun baan joognaa adduunka inta aan joogno aan isfahamno oo aan garano war meeshaan meel lagu sugnaanaya ma aha war meeshaan meel la joogayaa ma aha hantidan iyo xoolahan maanta aad ku dadaalayso oo laga yaabo inaad meel xundhan ka kasabtay laga yaabo inay diinta alla ku seejiyaan laga yaabo intii aan meeshaan nimid oo aan suuqaa galnay hal mar inaan kitaab qur-aana furin waa macquul waayo subaxiina sida ximaarkaan u shaqaynaa habeenkiina sida kilaabtaan u jiifnaa looguma talagelin waxay ahaayeen fursaaniin dadkii hore maalintii habeenkiina ruhbaanin bay ahaayeen oo waxay ahayn dad ilaahay aabuda subxaana wa tacaala magaalada madiina habeenkii saqdhex marka la gaaro shinni inay qaylinaysaad moodaa mid kasta gurigiisu ka istaaga ka qur'aan buu akrinaya ka waa sujuudaya ka waa ooynaya kan ilaahay buu baryaya kan ilaahay buu u qaylina subxaana wa tacaala annagu maalintii oo dhanna suuqa iyo beentiisaan ku jirnaa weentiisii ribadiisaan ku dhex sugannahay dhaarta beenta ah waxyaabaha rabbi diiday kulli afkeena waa u fududahay habeenkiina sida baktiyaan u naalnaa xaaladda noocaasa ma aha war wax lagu gudba maaha kun fi dunya kaannaka qariib nin fahmay saama yeelo walaalayaal ilaahay aan u soo rujuucno daacada alle aan ku dadaalno shilimaadkan qabrina lala gelin maayo waxaan aan tabcayno raadinayno waxay kuugu dambaysaa maanta xanuunka ku soo koro
maalinta xanuunka kuu yimaado, maalinta xanuunka sakaraadka kuu yimaado, maalinta geeridu kuu timaado, maalintaasay kaaga dhammaatay. jeebkaagay baaraysaa xaaskaaga haddii lacagay ku jirtay. waa xaasinimo meesha ugu dambaysa. xataa waxyaabaha ay nagu samaynayaan markaan sakaraad gaarno hadduusan ilaahay noo maciinin, wallaahi hadduu ilaah wax noo tarin, qof wax noo tarayaa ma jiro. war haddii saacaddii lagaa furay, war haddii jeebkaagii wixii ku jira laga bixiyey, war furii baabuurka haddii lagaa saaray, maxaa noo dhiman? waxaa lee noo dhiman inaan ilaahay u laabano subxaana wa tacaala. waxa janno aan ku gaari karno inaan maanta kasbano. ummaddan waxay noo qabanayaan malaha, ilmahan waxay noo anfacayaan malaha, xaasaskan aan 24 saac ayagu ordayno oo ay naga rabaan wax allaale waxay u baahan yihiin, xaaraan iyo xaaraan wixii lagu keenaba wallahi meelay nagu sheegayaan malaha. ayadoo hadday dhimato dhegadhegaha laga furaya, ayadaa tabcatee halkaa yariiska xataa u xira. weligiin ma maqasheen? waa maya. sariirta ha ku dhaqine, dhulka ku dhaqa. ayadaa kasbatay, ayadaa shaqaysatay, maxram la'aan bay jayna aaday, yay bangkok aaday, yay dubay aaday, safar xaaraamoo maxram aan la socon. waxaanay kasbatay. aaway waxeedii, aaway wixii ilaahay subxaana wa tacaala siiyey, maxay wax ugu anfici waayeen? afara'ayta in matacnaahum siniin uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun maa aghnaa canhu maa kaanuu yumatacuun. ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala, ka warrama haddaan dhowr sano u raaxayno, lacag la siiyo, dolar la siiyo, owlaad la siiyo, caafimaad la siiyo, in matacnaahum siniin uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun. wixii loo ballan qaaday sakaraada uu yimaado, meesha ay ku rafanayso, meesha uu ku rafanayo, uusan hadli karin, uusan ku soo fiirin karin, uusan waan u baahanay ku dhihi karin, uusan iga daa ku dhihi karin. uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun maa aghnaa canhum, muxuu u taray? maa kaanuu yumatacuun, wixii loogu raaxeeyey. awa caafimaadkii dhowrka sano, awa safarkii ay aadi jireen, awa diyaaraddii la iska raaci jiray, awa naagihii jooga laga kari la'yahay. ma soo istaagi karto, cishaa fadhigay ku tukataa, dayaarad bangkok bay u raacaysaa, dubay bay hotel ka degan tahay, waa keligeed, suuqaasay keligeed ka shaqaynaysaa. xalaal iyo xaaraan loo kala aaba yeeli maayo. raggaa lagu dhex jiraa, xishood waa dhammaaday. walaalan adduunku gebagaba waay. adduunka dumarkii xishoon jira haddii la waayo wax dhiman ma laha. suuqaasay joogtaa, 4 dukaan oo ay rag iyo dad bada joogaan dhexdeeday ku qadaysaa. dumarkeenna maanta baastaa lagu dhex cunayaa. ka waran waxaa noo dhiman? dumarkii hore maxaa la sheegi jiray? galaas caana hadday cabayso, nin ajnabiya meeshu soo maro, galaaskuu ka dhici jiray, dhulkuu ku dhici jiray. ayadoo cunaysaad agteeda maraysaa. xishood ma leh, istaxyi ma leh, sariig ma laha. ummadayda waxa ugu horeeya ee laga weyn doono xishoodka waaye oo rasuulku tilmaamay, aw kamaa qaala sala allahu calayh wasalam. xishoodkii aaway maanta, aaway akhlaaqdii walaalayaal. xataa hala ganacsadee si nadiifa haddii wax loo samayn lahaa, si wanaagsan haddii wax loo dalbi lahaa, qiimii wanaag baa la heli lahaa. haddaba qofka muslimkau dadaal, ilaahay aad yaad uga xisho, daacada ilaahay aan ku socono, aan noqono ummad fahamtay kun fi dunyaa kaannaka gariib. adduunka musaafirku ahow, war adduunkan koyta ku noqo, war waddanka aan joogna keliya qurbo kuma nihin, adduunkoo dhan baanu ku nahay, adduunkoo dhan baa lagu yahay. bacdamaa saas ay tahay, waxana anfacay waa inaan fahmnaa. waxa ilaahay agtiisa khayrkii wanaagga aan ku helayna waa inaan fahmnaa, waa inaan garanaa xaaladahaasoo dhan khayr iyo wanaag baa lagu gaaraa. nin baa rasuulka u yimid oo yidhi, yaa rasuul allah, waan ku jeclahay. ee goormay ay dhacaysaa saacadda qiyaamaha? goormay saacadda qiyaama dhacaysaa? su-aashaasuu markaa weydiiyey. war saacad qiyaama ma sahlana. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. سيدة إلهي تلمامي سبحانه وتعالى. إلهي وحو تلمامي، إلهي وحو نوشيغي سبحانه وتعالى. حدي لقارة ساعد قيامه إني معناها أنت لقارين إني دقسية ضلبان ذاتك عن رميسنين. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها من رميسنا. وفي القرآن كنت تلمامي متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. goormay saacad qiyaama dhacaysaa haddaad run sheegaysaan? saasay dhihi jireen. wuxuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala, dadka maalinta qiyaamo in saacadda qiyaamo aan rumaysnayn oo aan rabin inay ku socdaan oy camalkeeda qabtaan inay yihiin dadka dhah yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha. goormee la soo diraya? qul inamaa
cilmuha cinda rabbi laa yujalliiha liwaqtiha ilaa hu ilaahay mooye qof kaloo caddayn kara ma jirto. haqulat fi samaawaat dadka cirka joog way ku cuslaatay, arlada dadka joog way ku cuslaatay, ma timaada ilaa bakti iyo kada ma ahane. yas'aluunaka kaannaka xafiyun, siday qof yaqaan bay ku weydiinayaan, ee waxaad dhahdaa ilahay baa yaqaan subxaana wa tacaala. yastacjilu biha aladiin, waxaa degdegsiya dalba kuwan rumaysnayn. aawa dadka rumaysnaa waaladiina aamanuu mushfiquuna min way ka cabsanayaanba, waxay isleeyihin ama idinku dhacdaa idinkoon diyaar ahayn, fusaqada idinkoo ku dhex jira ama idinku dhacdaa, idinkoo sigaar cabaa ama idinku dhacdaa, idinkoo qayilaya ama idinku dhacdaa, idinkoo qafkiina wax ku jira ama idinku dhacdaa. markaasay xumaanoo dhan ka fogaanayaan oo ay diinta raacayaan oo ay xaaraanta ka tegayaan. waaladiina aamanuu mushfiquuna minha, maxay uga cabsanayaan? wayaclamuuna annaha alxaq, waxay ogyihin inay xaq tahay. alaa ina aladiina yumaaruuna fi saaca la fii dalaalin baciid, kuwa saacadda qiyaamo inkirsan oo diidan baadi bay ku jiraan buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu wax badan noo tilmaamaya, wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala nagu tirtirsiinayaa adduunkan inaan iska jirno, adduunkan inaan ogaano, adduunkan xaqiirnimadiisa, liidnaantiisa, daciiftinimadiisa inaan ogaano. wuxuu tilmaamay nin shaacir ah oo aad iyo aad u qiimo badnaa, adduunka asagoo cabiraaya oo tilmaamaya iyo ummadda ku dhex sugan. ilaahay wuxuu leeyahay cibaadan fatuna, addoommo oo dhugmo leh, addoommo garaad leh, addoommo caaqiliin ah, addoommo ilaahay yaqaano caqli alla siiye subxaana wa tacaala. fadunin waayo way baraarugsan yihiin. maxay sameeyeen? talaqu dunyaa, adduunkay sii daayeen, adduunkao dhan way talaaqeen. waxay ka cabseen fitnadeeda, waxay ogaadeen adduunka oo dhan inuu la mid yahay durdur, macnaha webi biyo ah oo ay dooni saaran tahay. markaasay adduunku waxay u arkeen nin nool inuusan waddan u ahayn, meel lagu noolaada inaysan ahayn. jacaluuha lujah, waxay ka dhigeen durdur oo kale. saalix alacmaal iyo camalka fiicanna doontii ay ku gudbi lahaayeen ayay ka dhigteen buu yidhi, adduunka lagu badbaadi lahaa. war adduunku aad iyo aad buu noo dhibay walaalayaal. addunyaa malcuun wamalcuunun maa fiiha, waa lacanadan yahay, waxa ku dhex suganna way lacanadan yihiin buu dhahay nebiga. ilaa caaliman aw mutacalim iyo wixii hoos yimaada maahane. war qof cilmi diineed dadka barahaya iyo qof cilmi diineed baranaya iyo wixii la halmaaliya dikri ilaahay maahane, waxa kale xaggee ka keenteen? waxa kale xaggeyna gaarsiiyeen? kii la dhalay maalintuu qaangaaray wax adduun raadiskii u bilaabay ilaa hadduu ku jiraa, ilaa hadduu ku dhex sugan yahay. maaragtay qofdha adduunku waa dhameeyey biswaani, adduun wax kaloo aan ka raba ma laha. maalinta dirham ziyaadaha wa ziyaadaa, maalintuu tukaan furtuu ku labaad raadiyaa, maalintuu gaari iibsoo ku kala raadiyaa, maalintuu xaas gursoo tu kala rabaa. adduunka xaalkiisu waa sida, ma laga dhergo, waa layska xakameeyaa walaalayaal, waa layska ilaaliyaa. haddaadan iska qabanin waxa waaye meel xun buu ku ridayaa. haddaadan iska ilaalinin oo aadan ka feejignaanin dhibaatuu kugu sallidayaa. haddaadan rabbi ka baryin inuu kaa ilaaliyo fitantiisa waa ku dhexdhexaysaa. sidaa darteed buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam, ibni aadam haddii la siiyo tug iyo waadi dahab ah wuxuu jeclaysanaa inay laba u noqdaan, laba inay noqdaan. laba haddii la siiyo afar buu jeclaanayaa, afar haddii looga dhigo 8 buu rabaa. xaggee u soconaa marka? waayahe bani aadam jawfkiisa iyo xabadkiisa ma buuxiyo ilaa turaab maahane. maxaa loola jeedaa? ilaa markuu dhinto oo dhardhaarta lagu qaado oo dhulka la geliyo oy dadku badiilka soo qaataan oo carada lagu shubo, maalintaasuu kaa aamusaya, maalintaasuu adduunka joogsanaya. inta kale soo maaha qofkuusan ilaahay ka badbaadinin fitantaasuu ku jiraa. xaaraan ku hel, xaaraan xalaal ku hel, riba ha ahaato, maxay galayaala maanta? wax kobcaa la rabaa keliya, wax bataa la rabaa, wax jeeb lagu shubtaa la rabaa. walaala thaqiilka iska yarayno. culayska maalinta qiyaamaha qof kasta waxii saaran ama dhabarka uu ku qaadayaa waa wax allaala wixii dembi ah ee markaa uu kasbaday, waa wixii xaaraam ah ee uu kasbaday, waa wixii hanti imtiqaana dhacitaan ah oo ilaahay raali uusan ka ahayn oo qofku markaa uu qaado. ninkii rasuulka u yimid wuxuu yidhi, rasuulkii ilaahayow goormay saacadda qiyaama dhacaysaa? maxaad u diyaarsatay ayuu yidhi rasuulka sal allahu calayh wasalam. maxaad u diyaarsatay? camal fiican ma diyaarsan buu yidhi, mana u diyaarsan wax kale, ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay sal allahu calayhi wasalam. labada xaalad baan ku jiraa, ilaahayna waa jeclahay
rasuulkiisana waa jeclahay. waxa la raadinaya intaasay ahaayeen walaalayaal. ilaahay jacaylkiisa iyo raadi ahaashadiisa noo dambayso. horta maxaan helaynaa? horta maxaan faa'iido ah maanta? horta maxaan kasbanay maanta? horta maxaa la iibiyey maanta? raadi ahaasho ilaahay ma lagu iibiyey? ma jirto. weligiis yuu raalli noqon subxaana wa tacaala. qof raadinaya maanta raalli ahaasho ilaahay waa nagu yaryahay, qalla maa yuujad. sidaa darteed ayaa waxaa la gaari doonaa suu rasuulku tilmaamay zaman dadku aysan u kala aabayeeli doonin awa min xalaal awa min xaraam. waxaan xalaal miya mise xaraam waa? xalaal miya horta mise waa xaaraam? ma jirto. waxaa la isweydiinay doonaa aakhira haddii la tago. waxaa la isweydiin doonaa markuu sakaraadku yimaado. horta gacanta ha soo gasho, horta ha la helo, horta ha la faa'iido, horta bangiga ha la geeyo. saa darteed baa dhac iyo dil iyo wax kasta waxaa nagu salliday waa raadi ahaasho ilaahay. raadin la'aanta aan ku socono xaaladdaa iska joojina. kun fi dunya, war adduunka ku ahow kaannaka gariib, sidii musaafir oo kale. war musaafir noqo. war meeshaan adi melihid. war meeshaan meel aad ku sugnaanaysa ma aha. daartaan daar aad ku nagaanaysa ma aha. daartaan daar laysku dhaafaya ma aha. daartaan daar aad weligaa joogaysid ma aha. waylun likulli humazatin lumaza. waxaa weeg u sugnaaday iyo halaag mid kastoo xam badan buu dhahay subxaana wa tacaala. lumas ah oo dadka dura, dadka ceebeeya. yaxsabu anna maalahu akhlada, moodo inuu maalkiisa ku waaraayo, inuu xoolihiisa ku waarayo. wallaahi dadka gobol ka mida markaad fiiriso waxyaabaha ay haystaan baad moodaa in adduunka kula waarayaan, in adduunka lagula joogaayo, in adduunka aan looga qaadaynin waxay markaa haystaan. ilaah muxuu yidhi yaxsabu anna maalahu akhlada kallaa layunbadanna fi lxutama. maya xutamaan ku tuuri doonaa. xutamo maxaa loola jeedaa? macnaha xutamo waa burburiso, waa midda wax baabi'isa, wax burburisa, wax dhibaataysa. xutamaan ku tuuri doonaa. siuu adduunka u burburiyey macaasiyo xumaan ugu sameeyey yaa xutamo inta lagu tuuro ayaduna ay baabi'in doontaa sida ilaahay tilmaamaayo. kallaa layunbadanna fi lxutama. wamaa adraaka ma lxutama? ma taqaaniin xutamo maxay tahay? xutamo xaaladeedu waa maxay? naarullah, ilaahay naartiisii waay. maxaa u dheer almuuqada, waa la huriyey, way shidan tahay, waa la huriyaa habeen iyo maalin. rasuulka habeenkii la dheelmiye muxuu yidhi? waxaan soo arkay buu yidhi nin aan weligii qoslayn oo aan weligii hadlaynin. mar allaala markaad fiirisa kariih ay tahay aadamadiisii aragtidiisa dadku ay ka cabsanayaan. dab ayaa agtiisa yaala, waa hurinayaa, markaasuu ku wareegayaa, waa holcinayaa, waa ku wareegayaa. mar allaala markaan weydiiyey jibriilna waxaa laygu yidhi waa maalik, waa khaasin jahannam, waa jahannamo keyd hayaheeda, waa kayd hayihii jahannamo. maa hurinayaa, maantao dhan wuu shidayaa. waida aljaxiimu sucirat, jahannamo waa la hurin buu dhaha ilah subxana wa tacala. iyo jaxiimo waa la hurinayaa. sababta loo shidayo maxay tahay? islaanta muufada dubtaa, tanaarka ay wax ku dubayso, cabbaar mar allaala markay dhowr muufa ku dhajiso, intay soo qabato dabqaadkay saa ugu walaaqdaa waxoogaa dabka. waa inuu sii huraa, waa inay muufadu si fiican u dubataa. maxaa jahannamo loo hurinayaa? maxaa jaxiimo loo hurinayaa? cusaadii ilaahay diiday inay ku cadaabmaan, inay ku gubtaan, in dheecaankoodu ku daato. saasaa loogu talagalay. waida aljaxiimu sucirat buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. xilligaa marka la gaaro jahannamaa la hurinayaa, si fiican baa loo shidayaa. cusaadii baa u timid, waxay gelayaan dadkii loogu talagalay. maalintaa intaan la gaarin adduunka qariib aan ku noqono, musaafir aan ku ahaano walaalayaal. yaanan u iilanin, yaan xaggeeda aadin, yaan xaggeeda u weecanin, yaan xaggeeda jeclaanin, yaan xaggeeda ladhumtaqalal dhex fadhiisanin. qofku waxaa loo baahan yahay aakhirana inuu gacantiisa miigtaa ku qabsado, adduunkana gacanta bidixda ah inuu markaa ku qabsado. gacantii bidixda waa ku qabanay, tii midigta waa ku darnay, ilkahaan ku haynaa, lugihii baa lagu daray, qalbigii waa la geliyey. annagoo dhamma dad adduunyad baan noqonay. rasuulkuna muxuu dhihi jiray allaahuma laa tajcal iddunya akbara hammina. ilaahu adduunkan ha ka dhigin hamigeenna kan u weyn. hamigaa kan weyn hadduu ka noqdo waa ku dhammaatay. yaclamuuna daahiran baa nagu dhurmowday oo min alxayaati addunya. waxay yaqaaniin ta muuqatee adduunka ah. sida loo kasbado waa naqaanaa, sida loo ganacsado waa naqaanaa, sida wax loo kala siyaasaya waa naqaanaa, sida wax loo kala qisho waa naqaanaa, sida istiikarada looga kala bedelo waa naqaanaa, sida wax loo qabeeyo waa naqaanaa. salaad ma naqaano, qur-aan ma naqaano, axkaam ma naqaano, soon ma naqaano, tawxiid ma naqaano. ka warrama walaalayaal, wax ay yaqaanaan maloo dhaha ilah subxaana wa tacaala.
yaclamuuna ظaahiran min alxayaati اdunya tanay yaqaaniin wahum can اlaakhirati hum haafiluun aakhira haafiliin bay ka yihiin maba ogaba inay jiraysa in kale ma oga hadduu ogaan lahaa ha ogaada inay aakhira jirto laakiin xaqiiq hadduu ogaan lahaa xumaantuu ka tegi lahaa alluu caabudi lahaa salaaduu ilaalin lahaa adduunkuu musaafir ku noqon lahaa xalaal iyo xaaraan markay isu yimaadaan xaaraantuu ka tegi lahaa xalaashuu qaadan lahaa nadiifnimuu u ganacsan lahaa nadiifnimuu u shaqaysan lahaa khayr iyo wanaagga alluu dalbi lahaa maalintuu way wuu sabri lahaa maalintuu helna ilaahu ku mahadin lahaa subxaana wa tacaala laakiin maalintan weynana see lagu heli karaa iyo xaaraan iyo been iyo waxaan jirin baa ku raadinaa maalintaan helnana kibir iyo aflagaado iyo isla weyni ayaan markaa ku jirnaa looguma talagelin qof adduunka qariib ku ah qofka adduunka qariibka ku ah oo musaafirkoo kale ku ah nib baa lagu yaqaan cabdullaahi sida uu sameeyo kale lagu yaqaan wuxuu u qaataa noloshiisa geeridiisa wuxuu u qaataa mtaqaanaa noloshiisa geeridiisa caafimaadkiisana wuxuu u qaataa xanuunkiisa oo waa dadaala rabbi buu ka cabsadaa intaan la cajizin oo adduunka lagaa duuduubin ama adi lagaa kaxaynin cibaadadaa lagu dadaalo ilaahay diintiisa lagu dadaalo saaya la qaato walaalayaal culayskan adduunka intaan iska yarayno aan culayska aakhira badsano markay wax helaan baa la yidhi waxaan u hormarsan jirnay daarta horay dhihi jireen meesha loo socdo waa caqabo buuraa la korayaa qof wax culus wadana buurta ma kori karo sidaa darteed baa haqiilka iska yaraynaa saasay dhihi jireen saxaabada iyo dadkii salafkay markaa horay u tegey adduunku maalintuu gurigooda soo galana musiibo inay soo gashaad moodaa maalintay wax badan siyaadsadaan way oon jireen qaar baa inaan laahiyeysan jiray maalintay dhaaftay ka tagto oy adduunku dhaaftana way farxi jireen maalintii hal salaad ay ka daahaan way oon jireen waa isku tacsiyeyn jireen maalintay salaadna dhaafta waa qosolnaa beri baan ku darayaa cishaha dab baan ku darayaa waa waxaan maanta samayno hadduu canuga dukaanka furaha haayo wax yar uu soo daaho maalinta weylbaa iyo halaagiisii malagiisaa galay sida loogu qaylinaayo dhibaatada la gaarsiinaayo meeshaan adduun iyo aakhira kala taaganaa fiiriya marka meeshaan adduun iyo aakhira kala joogna fiiriya waa la addimayaa salaadii duurka hadhow casir ku darayaa maalintii wax yar lagaa soo daaho ama wax yar lagu iibiyana sidii wax mataqaanaa musiibo ku dhacday oo kale yaad markaa u hadlaysaa xaaladdu yaysan dhicin walaalayaal nin dadkii hore ka mid ahaa beer uu lahaa aaday beertii wuu ku soo daahay markaasaa takbiirtii ixraamka dhaaftay ma aha salaadii allahu akbarta hore ee iimaankaa dhaaftay beertii o dhanba waa la sadaqeeyeyba maxayba iiga mashquulisaa aakhira la gaar heerkaasaa la gaarsiisnaa dadku cayaar jano looguma bishaarayn ayagoo sariirahooda jiifaa ilaahay subxaana wa tacaala aayado loogu bishaaraynaayo ciyaar in loogu soo dejiyaa u moodina saan aan ku socno kuma socon jirin xaaraantaan raadinayna ma raadin jirin fisqiga iyo zinada aan habeenkasta raadinayna ma raadin jirin khayrkii wanaagay ku dadaali jireen tasbiixda ahayd waxay ku sheekaystaan dikriga alluu ahaa waxay ku macaansadaan waxay qalbiga ku dejiyaan aayaadka alluu ahaa khamradan qalbiga ku dejinaa markii stresska naga batiyo waxyaabaha kale mijin qaad iyo laba baako sigaar buu doontaa wiilka dhallinyaraha ah gabadhii mar allaala markii ay ka badato waxyaabaha kale maxay samaysaa heeso iyo muusig yaalo iyo dhagaha gashataa intaa waxayla noloshan ku dejinayaa labadaa qol isku mid ma noqonayaan walaalayaa isku mid ma la ahaanaya waa maya saa darteed waxaan ku socono waa qalad waxaan samaynayn waa waxaan raalli ilaahay ka ahayn waxaan samaynayn waa wax laysku ciqaabo naxariista allah lagu joogaa maahane wax walba iyo dembi walboo ciqaab lagu heli karo waa samaynay wax walboo qof ilaahay ku ciqaabi karo ama ummadii hore lagu ciqaabay kulli waa samaynay zina hadday tahay waxay noo tahay maanta faan liwaad hadduu yahay ka sii daran ribo la cuno qof kastoo annaga naga midaa jecel adduun la jeclaado salaad laga tago rabbi la caasiyo wax allaala wixii laysku ciqaabi lahaa oo dhan ama ummado hore lagu ciqaabay dhammaan waa la wada sameeyey xilmi ilahi aan ku joognaa subxaana wa tacaala dulqaadka ilahi aan ka faa'iidaysano war inta ciqaabka nagu soo degin dhagxaan aan nala ku soo daadinin qaar baa dhulka lala gooyey fa kullan akhadnaa bidenbihi qof kasta dembigiisi baa lagu qabtay mid qaar baa lagu qeeliya buu dhahay subxana wa tacaala fa minhum man akhadatu sayxa qaylaa qabatay aw reer thamuud aw markay ilaahay caasiyeen aw markii rasuulkii loo soo diray ay diideen saalixa weli waxay dheen aayadna tusi in kunta min as-saadiqiin hadaad run sheegayso markaasaa dhul looga soo bixiya hal ayagoo arkaaya hashii baa soo baxday oo la yidhi hal ilaahay waaye iska dhaafa dhib ha gaarsiinina ka taga ayadii waraabkeeda walaa tamasuuha bisuu fayaqudukum cadaab saddex maalmood baa loo qabtay maxay sameeyeen facaqaru naaqa hashii bay qaleen ayagoo u jeeda ayagaa codsaday waa loo soo saaray waa dileen
gudbeen. ilaah muxuu dhahay tamatacuu fii daarikum 3 ayaam, 3 maalmood guryiina ku nagaada. mufasiriintu qaar waxay dhahaan maalinta koowaadna way guduuteen, way madoobaadeen, way mtaqaanaa midab kaley noqdeen. markaasuu ilaahay u soo diray sayxa. وثمود حسبوا الله سبحانه وتعالى إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين إلى وقت راحستا فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. أيقوا أركهايا يا أنت جبريل الله صدر له قيليه فما استطاعوا من قيام إلى استاجر حتى وأودي وايين وأودي قيلذي اللي قسم يدرتين واستاجوا وايين وما كانوا منتصرين. والله وحيابات إنه عذابك كعرة وسمين واي إنه سوق جرجار أما ولكن أجرجاره تين وادعي ويسي قارن كقيلنا يقول الله سبحانه وتعالى قارن بابيل لقو قرقي أو لقو ماشي أو فرعون معودي جرى أنا ربكم الأعلى كير مجو كجاري ما علمت لكم من إله غيري إلها أنا إذنكم أوجي مع كدم بينه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقرقوم يا مركا بيو كل منايا وحو كل حجراب بدي وحو أسعد إنه النبي موسى عليه السلام أنت سال وعدي أنت صاح الله شيء أنت صالح فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى وبيني وعسي ثم أدبر يسعى وجزته أرضي فحشر فنادى ومضي بسكسه وعي مكرفا كيبو قبصدي وارنواقو وقد بي قطب حما أدونك وحكا قطب فرعون بجرين فقال أنا ربكم الأعلى أنا إله سراه بويري فأخذه الله إلهي قبطي سبحانه وتعالى دنبك استول اسكو عقابه وأمضي أي قالين maanta gacanta lagu haayaa saaxiriinta ilaahyal bay noo yihiin meeshaasay fadhiyaan guriyay joogaan waa loo tagaa wiilkii dhalinyaro ah ee raba inuu gursado saad la socotaan ayagu u tagaa waa la weydiiyaa burji baa la weydiiyaa naagtii ninkeeda ka shakisa inuu naag kale la qaatay ayagaa loo tagaa waxaasa igu dhacay wax ii qabaa la yiraahdaa ninkaan iga qabee naagta iga celiyaa la yiraahdaa soo ilaahay kama dhiganin walaalayaal qof allaala qofkii dahab ka dhumo dumar ah ayagu u tagaa casirkay tukanaysaa iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin bay leedahay kadib waxay u socotaa sixroole naagka way qaxwo fiirisaa oday dhulka wax ku dhiga ku tusbax lula qaybna ka hadla kulli ilaahay bay sheegteen subxaanahu wa tacaala walaalayaal aan ilaahay keligii caabudna subxaanahu wa tacaala aan noqono ummad muwaxidiin ah qof allaala qofka u taga buu dhahay nebiga oo wax weydiiya 40 maalmood salaa lagama aqbalo waa 40 maalmood naagahaas didaaya ee socda ee qaarkood jalaabiib wata qaarkood diracyo wata guryaha safka ugu jira wax kale meesha kuma jiro nin faajir oo ilaahnimo sheegtay qaybka ka hadla ayaa jooga oo aan ilaahay agtiisa qiimo ku lahayn kaasa ilaahay laga dhigtaa kaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu bedeshay war ma laba rakaca tukatid ma ilaahay qeyrka isaashid daashid ma ilaahay tawxiidka iyo hagaaji dhahdid intaad u tagaysa dhaalimka mujrimka ah aan salaad aqoon aan salaad dukan aan ilaahay aqoon haybada islaamka oo dhan ilaahay qalbigiisa ka tiray subxaanahu wa tacaala feela loogu jiraa dumarkan ku ogeyn ragga gool kamida ku darsamay badeecada ima socoto maanta guriga saasuu iga noqday maanta hebel baa igu taagan maanta laa ilaaha ila allah rabbi tawxiidkiisi aaway faclam annahu laa ilaaha ila allah ilaahay ma ana ilaah kale inuusan jirin ogow waa lagu dhahay nabiga sal alla alih wasalam wastakfir lidambika kadibna dembi dhaaf weydiiso ilaahaaga dembi dhaaf u weydii wiilasha mu'miniinta ah gabdhaha mu'minaadkana u weydii wallahu yaclamu mutaqallabakum wamathwaakum intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa adduun jacayl waxaasoo dhan adduun jacayl baa nagu kalifaya adduun la jeclaadayaa waxaasoo dhan keena inaan sixroola u tagno waa adduun la jeclaaday inaan faaliyasato u tagno waa adduun la jeclaaday in burjina loo fiiriyo waa adduun la jeclaaday xaalad badan oo noocaasaa jirtaa saa darteed walaaleel ka digtoonaada cabdullaahi radia allaahu canhu garabkayguu qabtay buu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam cududayduu qabtay buu yidhi markaasuu igu yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariib war adduunka gariib ku noqo war meeshaan adi malihid war meeshaan waa lagaa wada war meeshaan karfana lagaa gelina war raashinkaaga waa lagaa celina war gaarigaagii waa lagaa reebaya war gurigaagii waa lagaa reebaya war carruurtaada ku raaci maayaan adduunkan gariib ku noqo amase wadagooye jidkaa nin gudbaaya noqo wadadaa laamigee baabuurtu marayaan nin dhaafaaya noqo saasaa qofka horumarku gaara ilaahay ku ciseeya sharaf iyo mudnaan ku helaa haddaan saa samayno ilaah wuu noo naxariisanaa mana la samayn karo ilaa qofkiinu adduunka iska ilaaliya maahane saa darteed ilaahay
aqari waxay tilmaantay qofka uu jeclaado adduunku ka ilaaliyaa, adduunkaaba laga ilaaliyaaba. sida axadka mariidka ah ee xanuunsan ee jiran raashinka kiisa dhiba aad uga ilaalisaan. ilaa qofka xanuunsan cunto kasta layskama siiyo, waxyaaba waxaa jira markuu qaato ku sii xanuunsanayo. ilaa sida qofka xanuunsan looga ilaaliyo cuntada gobolka mid ah yaa ilaahay adduunka uu jecel yahay adduunkuu ka xafidaa, waaba laga ilaaliyaa. waa hadhow ku fidnooba, dhibaatuu ku dhexgelayaa, mashaakil fara badan buu ku mutaysanayaa, ummad fara badan baa ku baadiyoobaysaa. aawa ninkii qaaruun ahaa ee ilaahay kitaabka ka sheekeeyey subxaana wa tacaala, hadday wax anfacaysa ninkaasay u anfici lahayd, xoolo hadday wax tarayn qofkaasaa janno ku geli lahaa. inna qaaruuna kaana min qawmi muusa fabagaa calayhim. waayo mar kasto qur-aanka in yaroo rabbi shukri waafajiyey oo inta xoolo far badan la siiyey ilaahay ku shukriyey maahane inta kale baqyi buu ku tilmaamay ilah subxaana wa tacaala. way xadgudbaan, way ku qooqaan, way ku kibraan. qaaruun kaana min qawmi muusa fabagaa calayhim waaataynaahu min alkunuuz. xagga kunsiga waxaa laga siiyey shay iska daa alaabta iyo lacagta iyo dolaraadka waxyaabaha u haystee makhaasiinadiisa kaydka ku jira furayaasha lagu furayo keliya. ma ina mafaatixahu latanuu bilcusba, ma qaadi karaan inteena meesha fadhiso, waa furayaasha keliya. maxaan haysanaa hadda? furaha jeebkaa lagu qaataa, dhowr furaan wadanaa, kiyaan ku kibraynaa. meesha waxa ku jira waa milyanaad haddii la fiiriyo. ninkan iska daa gudaha waxaa ku jira iyo baqaarada iyo hantiyaalka furaha lagu furayo keliya. inteeran haddaan isugu tagno ma qaadi karin buu dhaila subxaana wa tacaala. atamuhu bilcusba ulilquwa, weliba dad daciifa oo caata meehe kuwa xoog leh hadday isu yimaadaan xataa ma qaadi karaan. id qaala liqawmihi laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin. ha farxin bay dheh, war ha kibrin. farxa la tiraa farax kibir ah ha samayn, ilaahay ma jeclee. wabtaqi fii ma aataaka allah, war waxaan ilaahay ku siiyey daar aakhira ku raadso. waxaan lama imaan hadda adduunka saan tilmaanay, allah ku siiyey daar aakhira ku raadso. war daarta aakhira ku kasbo, war masaajida ku dhiso, war ka xaji, war ka cumrey, war masaakiinta wax uga tar, war muslimaadka wax uga tar, war agoonta wax ka sii, war masaakiintii garoobada. wabtaqi fii ma aataaka allah addaar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya. nasiibka adduunka aad ku leedahayna ha hilmaamin. guri aad seexatad samayso, gaari aad ku socoto samayso, xaas antaqaana aad ku cifaadsanaato samayso, owlaad tayibiin ay kuu dhasho samayso. walaa tansa nasiibaka min addunya, adduunka nasiibka aad ku leedahay ha hilmaamin. laakiin 24 saac adduunya u ordayaa, taa waxna loo diidaayo. adduunka kasbo, adduunka raadso, xalaal ku raadi, nadiif ku raadi. haddaad weyso sabir, haddaad hesho shukri. xaaladaasaa loo baahan yahay. walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kamaa axsana allahu ilayk. si ilaahay kuu wanaajiye ilaahay u wanaaji. hadduu ilaahay ku wanaajiyo xoolo ku siiyey, qabrabaa ku cabi wuxuu ilaahay kuu diiday. ma zinaad ku aadaysa habeen iyo maalin? ma gabdhaha fusaaqday faajiriintaad siinaysaayo casha ku siinaysaa si aad jirkooda u taabato ama aad u hesho? maxaa dhacay? xaaladaasaa la tilmaamaya. ilaahay mu ku wanaajiyey, wanaaji. xooluu ku siiyey, khayrka ku bixi. xooluu ku siiyey, xumaan ha u adeegsanin. fasaadna adduunka ha ku samayn. ilaa musudiinta ma jeclee. muxuu yidhi inamaa uutiitu calaa cilmin cindi, cilmigee laygu siiyaani. shahaadaan qaatay, waa shaqaystay, kombyuutarkaan bartay, intaan ka dhacay, saanaan yeelay, intaan ka baxay. war meeqaan kombyuutar bano ilahay arsuqay subxaana wa tacaala. war meeqaa digtoorayaal ahoo wax kasta soo dhameeyo 25 sano jaamacad iyo waxbarasho ku jiray, shilina aan haysanin. maqaayadaha maanta ka dhaqa saxanka iyo bakeeriga iyo waxyaabaha kale. meeqo ina allaha yabsudu risqa liman yashaa. qofku doona u fidiya subxaana wa tacaala, qofku doona ku ciriiriyaa. adduunka qofka uu jecel yahay iyo qofka uu necb yahay labada ilaahay waa siiya subxaana wa tacaala. laakiin diinka ilaahay ma siiyo ilaa qofka uu jecel yahay maana subxaana wa tacaala. adduunku ilaahay wuu siiyaa, kaafir buu siinayaa, mu'min buu siinayaa, faasiq buu siinayaa, zaani buu siinayaa. nin ilaahay caynayaa kaa xoolo badan, nin ilaahay ku xadgudbayo weligiisa sujuudin yaa laga inuu ka hanti caafimaad badan yahay. ilaahtiisa qiimo kama lahanba, faa'iida maba kala. wuu siiyaa ilaahay subxaana wa tacaala. kullan numiddu haa'ulaa'i wa haa'ulaa'i min cataa'i rabbik wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura. sismadayaa la iskama qadiyo. laakiin daarta aakhira fiican buu dhahay subxaana wa tacaala. undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacd, saan u kala fadilnay. waladaaru alaakhira khayrun, daarta aakhira khayr badan oo qofkii iimaan leh oo mu'min leh rabbi ka cabsan markaa u khayr badan. xaaladaasuu qaaruun tilmaamo, wuxuu dhahay cilmigaygan ku helay. miyuusan ogeen meequu ilaahay halaagay? midka xoog badnaa, ka xoolo badnaa,
oo ilaahay subxaana wa tacaala hanti kasta siiyey oo markaa la halaagay muxuu sameeyey intuu soo qurxiyey dahab iyo xariir iyo wax kasta oo qof ziino ah intuu korkiis saaro bannaanka ku soo baxay ziino ku soo baxay buu dhahay subxaana wa tacaala ummadduu ku soo dhex maray dadku marka waa labo dadna waxay majeersadaan dadkan xoolaha la siiyey 24 saac xule ka maxaa loo siiyey maxaa lay siin waayay ani ka muxuu helay maxaa u heli waayay ani ka uu dhistay maxaa u dhisan waayay ani ka waa iibsay maxaa uu iibsan waayay maxaa kuuge ilaahay weydiis subxaana wa tacaala maxaa kuuge ilaahay siiyey subxaana wa tacaala was'alu allaha min fadli am yaxsuduuna annaas dadka ma xasdaysiin calaa maa aataahum allah min fadli waxa ilaahay siiyey ma dadka ku haysatiin ilaahay weydiista allah siiyey marka haddaba gelin oo waxaan ka daa oo xoolihii waxay yihiinba waxir kalaba ilaahay baa bixiyee alla weydiis subxaana wa tacaala markaasuu ilaahay yidhi dadku labay u qaybsameen qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa layta lanaa hee mila maa uutiya qaaruun intay farta qanin bay dheen halaageeniyo qaaruun wixii la siiyo kale maxaa naloo siin waay ma oga waxa meesha ku jira sirta ku qarsoon ma oga waxay ugu dareen innahu laduu xadin cadiim waa nin dheef badan nasiib badana qaaruun intuu nasiibka leeyahay haddii ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiis uu ku jiri lahaa rabbi rumayn lahaa nasiibka kaasoo ahaan lahaa yaa soo haray kuwii cilmiga la siiyey maxay dhaheen waylakum hawaabu allah khayrun liman aamana wa camila saalix war halaagiina saa hadhihina camalka iyo khayrka iyo diinta alloo lagu dhaqmo yaa shay kasta ka fiican wamaa yulaqaaha ila asaabiruun waa warwareegay fardiisii gawaardiisii ku wareegay gurigiisii buu ku laabtay markuu galay daarta meesha ugu sarraysa macal asaga macal xoolihii macal furayaashii la qaadi waayey hal maruu ilahay dhulka la gooyey subxaana wa tacaala aw nasiibkii marka fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard asaga iyo daartiisa dhulkaa cunay wax kale xataa looma soo dirin arladii ay ku tala la yidhi qabo adi keliya fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard fi'a ma laha koox ma laha wax u gargaarta ma laha wax asna iskuma gargaari karo wasbaxa aladiina tamanaw makaanahu bilams aw kuwii shala dhahay maxaa noola siiba wixiis maxay dhaheen ilaahay waa firiyaa risqi liman yashaa qofkuu doona ku ciraamiya way kaanahu laa yuflixu الظaalimuun way garteen xoolahaan badan inaysan waxba ahayn kun fi dunyaa kaannaka gariib adduunka ku noqo sidii qof musaafir oo kale adduunka aan ku ahaana musaafiriin ma dhahayna adduun o dhan lasoo duuduubo dhihi mayna adduunyaa loo shaqaysanay laakiin saan aan ku socono si fiican ma aha waa loo soo shaqaysan jiray waa la kasban jiray waa la guursan jiray waa la ganacsan jiray waxbaa la samaysan jiray hanti baa meel la dhigan jiray laakiin tan oo kale weligeed lama arkin walaalayaal aan ilaahay usoo laabana subxaana wa tacaala dad khayrkii wanaagga ku dadaalana aan noqono cabdullaahi garabkaa laga qabtay rasuulkuna wuxuu ku dhahay ahow adduunka musaafir oo kale ama mid jidgoynahaya anaguna saasoo kale aan noqono caawixii ka bilowda ilahay xaqa waxaan ka baryaya inuu xaqana waafajiyo daacadii diinta allah nagu sugo ilahay dad adduunka macna daradiisa gartay allah naga dhigo aakhira hamigeena kan u weyn ilaahay ha ka dhigo adduunka hamigeena kan u weyn ilaahay uusan nooga dhigin inta xanuunsan caafimaad taama allah siiyo inta dhibaataysana dhibka allah ka qaado inta kurbaysan kurbada allah ka faydo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatadii mashaakilaadka allahna dhinac mariyo shari shaydaan allah naga qabto ummadda ahludiin oo diinta islaamka ku dhaqanta allah naga dhigo walaalo xaqoo khayrkii wanaagga ku dadaal ilaahay ha naga dhigo carruur intaan haysan carruur khayr badan oo caafimaad qabta allah siiyo iyo sababtii lagu heli lahaaba intay ka xanuunsiin allah u caafiyo in allaala inta ay ka jireen allah u caafiyo intay ka baadiyoobeen allah u soo hanuuniyo intaan haysanayo khayr badan allah siiyo san masaajidkan iyo khayrkan ugu kulanayna ilaah jannooyinkiisa firdowsa naciima iyo meelaha lamidka allah nagu kulmiyo allahuma aamiin 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 wabillahi tawfiiq wallahu a'lam